see what a movie. The best movie waa aan daawaday in mudda oo filmka sheekada uu leeyahay musicada dareenka murugada wax aan caadi ahayn waay waxa above level waay filashada aan qabo Sayaare waxaan isdhahay aniga wixii aan filay wax ka weyn film ku arko waa huge movie wali xitaa repeat value waqti gaarta ku ceshan kartaa aniga waxaan ku daawaday hadda soo alaabtii 1x bad aan daawaday oo normal la daawan kara laakiin oo aan 4K ahayn saasay tahana filmka macaan oo caadi ma armaxo Mohit Sori director salana u taagan saluut waxa waa filmka uu sameeyay Mohit Sori my favorite director oo kamid yahay ninkan filmada uu sameeyay caadi ma Sayaare extraordinary movie waa sababta filmkan Hindi waxay u amaaneen wax yar ma ahan aniga Hindi meel iska dhigay tayada markaan ka hadlo filmka hal meel dhinac waa uga jeesan waay hatta heesaha caadi ma narration qaabka filmka Mohit Sori u dhigay performance-ga jilayaasha meel laga tuuro malahan markii aan ku hormar performance-ga jilayaasha walla ay star spawn xidiga soo baxbeen ma wiilka sida filmka soo u jilaayo kaamirada markii lagu aadiy murugta soo u jilaayo raganimada soo u jilaayo xanuunka gudaha uu ka dareemayo sidoo xitaa u jilaayo war wiilkan iskuul jaamacada ka soo baxay jilin maba aha in screen-ku cusub ma shaashada oo hal mar xitaa waxaan ku dhamal laga fahmay kana newcomer hay haatay ka tahay isma dhihiso filmka u jilay waliba scene kasta soo u jilay macnaha way adagtay film wiil cusub ah sheeka noocan oo sameyn kara waa wanis in bulum waxa la dhijiro waa tuka cadamal arkam tuka qasab waa inuu meel ka muday marka waa sheekadaas amal waa sababtoo jilinkana wuxuu yaabay challenge cunug yar oo fan ku soo biray oo waliba nepotism loo ilmaha isqraabisi ku soo galaan oo waalidkiisii reer Bollywood ay yihiin macnaha adeer waxa uu Jackie Bandaw gabadha ilma adeer yihiin ka soo hormarto anaya bande taas waxay ogtay mala zero wala cunigan ay inda burburkan caadi ma filmku waa ka baxsad maane jilin waa dhameeyay laakiin nimayaho runta wanaagsan gabadha Anid Bade aniga xataa hadda ana xataa waa isqabana ana iskarbaashay sababtoo gabadha amaantay mudantay ma ana siin anaga amaanta 100% mudad ma aan siin dhankayga Hindina ma aysan siin sababtoo ahaan waa qofka isku hay laakiin please filmka daawo sheekada dhanba gabadha waa Anid Bade ayay wallahi hadii runta laga hadla gabadha wiilka ma kala liitaan la gabadha ila qatarsan sababtoo dhibaatada iyo xanuunka ay marayso iyo cudurka qabto war gabadha filmku waxay qaaday door extraordinary ah war nimanka filmada ka falatan adraasho hebelo hemash mangado shabakadaha kala duwan ku dhiganay sababtoo star is born ku yisin war cunigan siyas waxa waa eedan xidig soo baxdo hala sheegay gabadha qiyaal xaqin waa ka baxsata ma ahan jilin ay sameys unbelievable performance ay sameys ana caadi ah waliba haday gabadhaas laga saaro filmka wax macna uu sameeynaa male sidoo kale tan labadoodan waa iskaabeen chemistry-gooda Anid Bade iyo Han Bande director-ka fartu ka saaro wuxuu dhahay kalsoonidana qabteen filmka jila waxa waa ku raaxaystaan chemistry labadooda ka dhaxeeyna caadi ma ahan mid kale tan filmka marka daawanaysid qofkii ani waa nin weyn iska dawaab tageen laakiin qofkii dhalinyaro oo daawanaya welcome nocturne film ku noqonaa sababtoo jaceelka uu ka hadlayo iyo sacrifice-ka tanaasulka uu ka hadlayo iyo sida isku caawinayaan iyo xanaaqa wiilka uu qabo iyo gabadha xanuunka loo geysto dabcan jaceelkeeda ee weyse xanuunka ay qabto perfect movie waa sababtoo qofka dhalinyarada wuxuu u baahan yahay jaceelka uma baahan wuxuu u baahan yahay jaceel company waxa u baahan ku garab istaago nolosha ku riixo gabadha si wiilku caawinaysa caadi ma dabeecadii soo qalibsan madax adeega problem ku jiro jiho u bixi laayay Sayaare xidig noqonaysa gabadha si fiican ay wiilku caawinaysa sidoo kale asagana gabadhana si fiican u caawinaa qalbi jabkii jaceel ku dhacay wixii ay weysay murugadii xanuunka ku dhacayo dhinaca kale tan ayada nolosheeda u dhisaya filmku wuxuu ayaa director Mohit Sori 100% ku faryeeraysta Sayaare sheeka ma u baahnay ficil u baahan hadda Sayaare daawan film ma ada daamo 2025 best movie waan dhankay waxaan qabaabo best actor iyo best actress atora u fiican iyo atirashada ugu fiican la sii ahaan Bande Anid Bade labadooda u qalmaan newcomer ma wala westernayeen soo galootiga Bollywood ugu fiican in muddo la arko laakiin aniga waxa ugu darla bilada weyn film fire-ka basiinna dhakam cunigan ku siinla sababtoo Hrithik Roshan markuu 2000 soo gal another level waa lama gaari koona biyaari craze of the nation noqday CC January ila December filmka saarnay Blackbuster waa liiw noqday 30 milyan qof oo ticket u goosteen up to now Ekbal Jina heesii ku jireen Hrithik Roshan waxa meesha uu tagaa laga rabaa waxaas lama gaari karo iyo gabadha lagu magacaabo soo kale tan si kaga baxsan filmka caadi ma aha Amisha Bata laakiin this one Sayaare qof walba eeru leeyahay rubac qarni ka hor 25 sano ka hor Hrithik Roshan kugu ma haysan craziness kaaga waalidii euphoria-dii superstar nimadii aan noqotay ma lagu weysto mana la gaari karo waxaas kala marka laakiin wiilkan
wuxuu ku raaxaysan noloshan adag oo dhanka industry Hindiya oo hiid xitaa la in dabcan dadka shaleemadu ku soo celsho jacayl waali loo qaado within 2 days shabakada box office India filmka Blockbuster way ganacsigiisu aan kala joogsan lahayn heesihiisa oo hirgaleen sayaare horta heeska taata track filmka maxay qalbi taabatay laakiin Mohit Sori xariif wuxuu ku aadiyay dhamaadku ku aadiyay filmka heeska saa u sugaysid heesaha kale oo top level way war filmka meel laga xooro mar xitaa gabadha waalidiinteeda waxa way si fiican gabadha u garab istaagay actorka aabiis xataa door fiican u leeyahay inkastoo uusan ku badnay saaxiibadiisa gabadha midkee jeclaan jira nolosha dabcan kaga tagay hadhow ku soo laabana saameyn ku yeelna war film wuxuu ahaa meel laga tuur aan leh laakiin wax walba waxa kaaga daran wiilkii xanaaqa badnaa carada badnaa dadka la dagaali jiray in uu noqonayo qof dulqaad badan jaceelkiisa garab istaagayo xitaa wuxuu kala dooranaa xidignimada uu noqday iyo muusigistaha iyo heesaaga meesha uu soo ka joogo wuxuu kaga tanaasulaa si uu jaceelkiisa u garab istaago filmka waa wallahi iyo xanuunka taabanayo sayaare waxa film waa dhaafay film waa dhaafay sayaare mid kale tan filmkan nadiif waa ani markaan daawanayo ma ogi wax kale ma burhaan kale ma ahaysan ma ogi haddaan runta ka hadla filmadu waa ka duwanaa oo bariyahan daawan jiro shucaa ay waxaas darbiga ku qaldaameen this one nadiif waa film nadiif ah filmkiyo macaan inuu iska socdaa raba xataa way u dhamaada laad waa isweydiina sayaare sababta min muddaam iga maqashan filmkan iska socdaa wax laba saac iyo bar saac ka badan waxaan leeyahay inuu iska socdaa sababta waxa ugu wacan doonta ay saareenan caadi ahaan bavani iyo soo kala dabcan Krish Kapoor doonta ay saareenan caadi ahaan what a movie ar filmkana film waa dhaaf sayaare ma ahane film waa film yaalo saaxiibada qiimo badan ani waxa waa shiba iga soo hartay film markaan daawado cabbaar xataa reaction ma sameeyay waa xogaa u nastay saaxiibkii xitaa aadan muriidi waa ila soo hadlay oo Sweden jooga asiga xitaa filmka waa daawaday cod yar oo isoo duubay aadan codkaas uu dhahayo وأنا حتى عمامه صوت روح وده أفر حدق شان حدق وقلما وده أفر حدق ويصور ده واتساب وصاحبك يقول سؤال روح وده فيلم كسياري عن داوده أفر حدق استوى صار قرال وصاحبك يسوق لكن أنا وأوجو عند حد نمسته 5 ستار وان وكهاي آدم مرودي أنت حسن كاردينا أنا آدم مرودي وكسر فكانت 5 ستار مدال صوبت آدم وحوي إلى مركز توا لجميع فيلم كسكستو في يعني 5 ستار مسين كري وده أفر عن كعلنا يا أفر هدانسي وحودي متواضع 5 نودي متلاك عارف أفكيسو حاجة كان وأقل ما أنا أفر سيستنا عشان سي صاحبة إيجاسي مكاجر نورت آدم وكهاي عاو وكان صاحبك أو 5 ستار أخباري والنادر أيضا وحتى والشاكة كلا ونسنا بنوم متقعد الأركو آدم عشان حدك أخباري عاو أبوه رسول مركه أركتديني كجبت أقيال ماشي صاحبك وكجراي أقيال صاحبك آدم هذا نوع وصل لتنا مقالك لما يعدك لو يصدو وحوليه الضوضان قبابة أنت كفرنا ولا صوبته وحوليه gabadha way loo dhiiwa star spawn oo wiilkan kaliya bumbuniyaan rabaayo anid baadiyan wataa taagan yahay aadan waa ka haya asxaabtan waa soo dhaxdhigtay warka waa nooy dhageysteen waxa aadan waa burursan caaw wuxuu taagan anid baada gart xaqeed hal si taagan gabadhaas markii la siiyo wiilka ahaan bande kaliya filmkan gacanta laga saar lagu amaano ma ahane gabadha kama liidata anina waa qaba asigana uu qaba dhaxla idin soo dhigna marka saaxiibayaal action kan intaas nooga egi haddaadan daawan sayaare soo daa markaas la falgay la qofkii soo daawaday waxaan rajaynaynaa asagana gartan wax ka galo oo nala gooyo